dabaaldegyo lagu soo dhaweynayay xuska dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo ku beegan 12 Rabiicul Awwal ayaa maanta lagu qabtay degmada Xaraale ee waqooyiga gobolka Galgaduud bulsho isugu jirta culumudiin mas'uuliyiin arday iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi ayaa socod ku maray jidadka waaweyn ee magaalada iyagoo ku dhawaaqaya salliga Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee bulshadani ayaa ugu dambeyn isugu yimid goob loo diyaariyay munaasabada xuska dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxaana goobtaas ka hadlay gudoomiyaha degmada Xaraale Bashiir Daahir Yuusuf iyo qaar ka mid ah culimadii ka soo qayb gashay munaasabada ilaahay islaamka naga yeelay inaan rasuulka yaga dhalashadiisa u banaan baxnana karsiyay baa mahad iska leh ilaahay na garansiiyay inaan u soo istaagno oo yar yar iyo waaweyn iyo odayaal iyo hooyooyin iyo culumo iyo dhalinyaro ilaahay na garansiiyay baa mahad iska leh asagaan u mahad celinaynaa xafladdu waxa jooga culumadii waxa joogta mashaaikhdii waxa jooga dadkii wax yaqaanay oo odayaasha ahaa ayaga wixii siirada rasuulka iyo wixii khayr ah noo faahfaahin doona inaan isugu nimaadno munaasabadan oo ah dhalashada mawluudka bishii iyo waqtigii uu dhashay suubanaheena rasuulkeena Muhammadin salawaatullaahi wa salaamuhu calayhi uu dhashay oo ah maalintii ilaahay koonka uu keenay wax uu baxsho ilaahay wax uu baxsho cadliyo uu baxsho oo uu khalqiga siiyo midii ugu weyneed oo ilaahay uu baxshay maalintii ilaahay uu bixiyay munaasabadaas ayaanu isugu nimid ilaahay baan uga shuurinaynaa wuxuu yiri saxaabigi Ubay ibn Ka'b aha oo taqaaneen Ka'b ibn Malik baan sheegay Ka'b ibn Malik wuxuu yiri markii toobadaydu ay soo degatay intii konton maalmood go'doon la geliyo laga haajiray arin uu sameeyay oo qalad ahayd awgeed toobadaydu markii intii nabiga Ilaahay u waxyooday nabigu uu bulshadii u soo gudbiyay asxaabtii in toobadaydii la aqbalay muhaajiriinta markaan ummadii u imid oo soo baxay bay ayagoo jamaaca asxaabtii iga hor yimaadeen ayagoo ii tahniyeynaya markaas muhaajiriinta hal nina baa iga kacay wiil dalxa saxaabigii la dhihi jiray arinta ma ilooba la ansaha li dalxata abada waliga dalxa arinta uu ii sameeyay ma uu ilooba hayuu oo ah inuu ii tahniyeeyay oo ii soo istaagay maadaama maalintaas uu nabiga suubano saxaabiga ku yiri waxaad ku bishaaraysataa abshir bi khayri yawmin marra alayka yawmin mundu waladatka ummuk maalin ku soo mara laga soo bilaabo markii hooyada ay ku dhashay maalintii ugu khayrka badnaa ku bishaaraysu nabiga suuban ku yiri calayhi salaatu wasalaam Xuseen Ali Xuseen warbaahinta qaranka degmada Xaraale